magaalada Burco ayaa waxaa lagu soo bandhigay buug ciwaankiisu yahay waad guuleysan kartaa sida uu warkaasi inoogu soo diray wariyaheena Maxamed Axmed Damashaad munaasabaddan oo ay misii hersare loo sagaasimay isla markaasina kulmisay bulshada qaybaheeda kala duwan taasoo ujeedkeedu ahaa gorfaynta buug loogu magac diray yukan weynama waad guuleysan kartaa kaasoo uu qoray Professor Bashir Maxamed Maxamuud ayaa habeenkii xalay ahaa ka qabsoontay hoolka jaamacadda Abaarso University fariicida magaalada Burco taasay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada ee Maanmal waxaana ka soo qayb galay abwaano aqoon-yahaneen waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee dhalinyarada magaalada Burco waxaana ugu horeyntii munaasabadani daha furay isla markaasina sharaxaad ka bixiyay macnaheedu nuxurka buugani xambaarsan yahay aqoon-yahan Bashir Maxamed Maxamuud kaasoo ah qoraaga buugaasi khibradu laba ay u qaybsantaa waa khibrad markaa aad u wanaagsan oo farxad iyo raaxo aad ku xasuusato iyo xirfad aad ku xasuusato markaas ama experience aad ku xasuusato xagasho iyo dhaawacyo iyo markaa nabarro ku soo gaaray waxa la labaduba waa khibrad baa la run ahaantii oo aad bay labaduba in la xasuusto ugu wacan yihiin qodobka saddexaad markaa ee go'aamiyo qofku waxa aaminsan waa maxay waa qayb aad u muhiim u ah education ama aqoonta weeyaan qofkan aqoontiisa aqoontu waxa la qofku markaa aanu aqoonta lahayn waxyaabuhu aaminsan yahay iyo sidoo fakaraya way ka duwantay qofku markuu aqoonta leeyahay ayuu baahantay waayo iyada isu furaa in badan nolosha kamid furay markaas uu tahay markaas waxaan soo qaadan doonaa tayooyinka qofka guuleysta lagu yaqaano tayooyinkan tolomaleed ka dhaxelaya ama naftaadu tolomaleed tayooyinka qofka guuleysta lagu yaqaan waxa kamid ah desire rabitaan xad dhaafa oo maxaya inaad guuleysato in macni ay naftaadu labada hore ku taagan tahay oo macni gabiga aad diyaar u tahay xitaa dilaa waa la duulaya aad tiraa waa duulaya qodobka la waxa weeyaan responsibility mas'uuliyaddu waxa weeyaan naftaada inaad mas'uuliyad ka tahay oo xaqii maamulka waqtiga xaqii qorshahaaga nolol dhamaantiiba in adigu jeebka markaa kugu jiro ayaa markaa aad u muhiim ah waxa inta badan dadka dhiirigeliya yiraahdaan waxaad iska ilaalisaa inaad 100% qof ku xidhnaato haddaad 100% dabadhanti noqoto guul gaari maysid run weey qofkaas uu dhiman kara uu teey kara waxuma ku dhici kara marka mas'uuliyaddu jeebkaaga ha kugu jirto haddaad tiraado hebeelun baa yaqaan kombiyuutarka kaasa marka soo xigi qora guul kuma socotid waa inaad noqotaa qof marka qaar ama inta badan adigu hadar wani sheegay in iskaashiga loo baahan yahay haddana laakiin nolosha qayb kamid ah you should be independent waa inaad madax banaanaan kartaa waxaan soo qaadanaynaa commitmentka qofkani sidoo waxaan soo lahaan ugu lug leeyahay macni ugu degdegay u fulinaya marka qudheeda commitmentka qudheedu qayb marka ka yahay waxaan saa u sameynaysa u fulinaysa markaas iyo sida marka waxaan diyaarka ugu tahay aad bay run ahaantii muhiim marka u tahay marka la soo qaadanayo waa tan la yiraahdo haddaad aaminto waxa ayna sameyn karto waad sameyn kartaa markaas Maxamed Damashaad wararka Royal TV magaalada Burco